waxaanu halkan ka gelaynaa ducaa salaat al-istikhara salaada loo yaqaano salaatul istikhara salaadan ujeedadeedu waxa weeyaan inuu qofku Ilaahay subhanahu wa ta'ala kula tashado oo salaada marka uu ka baxo oo ducaysto ducadaasana salaada loogu magac daray oo salaatul istikhara leeyahay ducada qofku oo la yimanayo waqtiganna waa duco oo nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadiisa uu baray oo kamida ducooyinka ugu muhiimsan laga rabo qof kasta oo muslimi inuu barto damacaynu waa badan yahay hiigsigeenu waa badan yahay waxaynu doonaynaa waa badan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu ka rajaynaynaa waa khayr iyo wax wanaagsan adigu ma taqaanid waxa mustaqbalkaaga ku horeeya waxa doonaysaa inuu ku wanaagsan yahay iyo inuu ku xun yahay ma taqaanid mashruuca aad bilaabayso iyo hawsha gacantaad la galayso iyo safarka aad u baxayso iyo xaaska aad guursanayso nin iyo naagba ama qof dumar iyo qof nina hadba kii aad tahay iyo ganacsiga aad bilaabayso iyo waxbarashada fakalka aad qaadanayso iyo takhasuskaaga waxa aad ku yeelanayso runtii bani aadan baa tahay aqoonteenu way gaaban tahay ma garan karno waxaan aynu doonayno ee aynu qorsheynay ee aynu samaynayno ee aynu nidaaminayno miyuu yahay wax mustaqbalkeena anfacaya mise ma aha halkaas loo baahan yahay marka inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala talada u dhiibato inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala taladaada hor dhigto oo Ilaahay aad kala tashato oo tiraahdo Ilaahay anigu dooran maayo ii door Ilaahay anigu aqoon iyo cilmi uma lihi iwaafaji halka khayrku iigu jiro kiisa adduunyo iyo kiisa aakhiro marka mashruuc kasta oo aad bilaabayso iyo qorshe kasta oo nolosha aad ka leedahay intaanad gudagelin waxa laga rabaa inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala la soo tashato taasa aynu maanta baranaynaa ducada oo qofku ku ducaysanayo marka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala la tashanayo كيفية بيلاده استخارة الله سمايو قفكوا وإنه مركور سوي سيستو أولا وقبل كل شيء وإنه صوت حركاته وسوي سيستو مرك الله بعد وإنه نيستو إنه إله سبحانه وتعالى لا تشنايو إذا أبو قيمها بدنا إلى لا تشدوا إلهي مرك سوي سيستو وإن النيستين إله سبحانه وتعالى لا تشنايسو قدم كصدحات وإنه قفكوا الله برك عضوات oo sunna ah oo ahayn laba ragcadood waajib sida salaada subax oo kale waa inuu tukado laba ragcadood sunna ah oo ahayn salaad waajib waa inuu tukado qofku salaada ka bacdi waa inuu gacmaha kor u taago oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baryo ducadan maanta aynu dhiganayno inta marka uu ducaysanayo intaanu ducada bilaabin waa inuu qofku in badan Ilaahay u mahadnaqo waa inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam in fara badan oo ku saliyo oo Ilaahayna uu mahadnaqo nabigana kaleey salaatu wasalaam oo ku saliyo markuu inta la yimaado waa inuu ducadan maanta aynu dhiganayno oo akhriyo ducadu marka maxay tahay qaala Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma saxaabiga Jaabir leeyahay waxa uu yiri Ilaahay sagayo abihi barnaalaha ka ahaade kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka Ilaahay wuxuu ahaa yuallimuna al-istikharata midna bara istikharada يعني إن لبا أرمون مركز كوك هاي قبطان عما قفك ودوني إنه هول قلو النبي قوي حنا بريتشرين يعني إلهي لصوت شنو في الأمور كلها أرمها يقع أوردن إنه إلهي أديبنو وإلهي كلا صوت شنو إنتانا فرب قابل أي النبي قلنا بريتشر عليه الصلاة والسلام كما يعلمنا استخارة النبي وحو نوبري جري سيدي أو نوبري جري السورة من القرآن سورة قرآن ككاملة سو النبي نوبري أم نوبري جري أي استخارة نوبري أم نوبري جري يقول وحو النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم متكين مركة أو ضونو بالأمر أرن إنه أرن سمايو فليركع ركعتين لبا ركعدود هتكدو لبا ركعدود او سنه او من غير الفريضه ان واجب هين هتكدو ثم ليقل كدبنا هيراهدو وتا marka ducadii halkaas ay ka bilaabmaysa wuxuu qofku oranaya Allahumma ilaahi اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته أرنكيس ومقعاوية خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وحول ليها قفك اللهم إلهي ربك يوم إني أنا أستخيرك بعلمك waxaan kugula tashanayaa aqoontaada ilaahay oo aqoontaada wax walba u leedahay darteed baan kugula tashanayaa wa astaqdiruka biqudratik ilaahay waxaan wax kugu weydiisanayaa awoodaada iyo kartida aad ilaahay wax walba u leedahay baan wax kugu weydiisanayaa oo aan kaaga qadar dalbaya wa as'aluka ilaahay waxaan ku weydiisanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga weyn ayaan ilaahay ku weydiisanayaa fa innaka adigu taqdiru waad awoodaa walaa aqdiru anigu sama awoodo wa taclamu waad ogtahay walaa aclamu anigu sama ogi wa anta ilaahay adigu waxa tahay callaamul ghuyuub wax kastoo qarsoonkii u xoogaalka ahaa ee aqoonta dhammayska tiran u lahaa. اللهم إلهي إن كنت تعلم هدي أكتهي وابد أكتهي أن هذا الأمر أرن كان إساقع مركا أدقليسو ويسمي حاجته وحمق عاوة يقفكو دانتي أولها مقوربا مصفربا مقنعسبا مهولكلا ويسمي حاجته أرن كيسو مركا مقعاونا خير لي هداد أكتهي إلهي وإنو خير ليهي في ديني دينتيدا أو خير ليهي ومعاشي الدنيا إيا نولشيدا أو خير ليهي يا وعاقبة أمري أرنكيغي عربتيسا هدو خير ليهي أو قال أمو حورنا يا عاجله وآجلي إلهي تن الدنيا إيا تآخره الدنبابا هدي أرنكني أو خير ليهي فاقدره لي إلهي يقدر ويسره لي إلهي يسر ثم بارك لي فيه كدبنا إلهي بركة. وإن كنت تعلم هداد ربك يو أكتهي أن هذا الأمر أركن إستقعه شر لي إنه شر يدبات إليه أو شر أو إليه أو سامين في ديني الدين تيدي يو معاشي الدنيا ديدي يو عاقبة أمري أركن عربتي سهدو سامين أو قال أمو حورنا عاجله وآجله الدنيا إيا آخرة هدو إلهي ويقى سامين أو أرنكني أو شر إليه فاصرفه عني إلهي ويقى الليحي أو أرنكن إساقا إيقى الليحي واصرفني عنه أنا قنا الليحي إلهي وأنا قنا أرنكن سانوك لليحي إساقنا بالمري أنا قنا بالإمري واقدره لي الخير إلهي خير كإي قدر حيث كان ميشا أو تشيرو إلهي خير كيغو حق أو إيالو aniga meesha khayrku ugu jira halka ay tahay ilaahay oo halka ay qadar thumma ardini bihi kadibna halka igu raali gali oo qalbigayga ku daji bal ducada qiimaheeda iyo qaayaheeda eega runtii way qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala arrinkiisi oo dhan u dhiibtay muxuu yiri ilaahay oo adaan kugula tashanaya waxaan kugula tashanayaa awoodda aad leedahay ilaahay oo waxaan wax kugu weydiisanayaa qudradaada iyo qadarkaaga waxaan ilaahay wax kugu weydiisanayaa fadligaaga weyn iyo deeqdaada qiimaha badan ilaahay adaa wax awooda anigu ma awoodo adiga aqoon leh oo wax walba yaqaan waxa soo socda yaqaan oo wixii tagay yaqaan anigu ilaahay si aqoon u malihi waxa igu soo socda ma wixii xunba mise wax ii wanaagsan ilaahay aqoon u malihi ilaahay wixii qarsoon oo dhan adiga og ilaahay wadada arrinkan ogtahay qofku marka arrinkiisa uu magacaabaya ilaahay haduu khayr ugu jiro diintayda iyo adduunyadayda iyo ciribtayda dambaba ilaahay uu qadar oo ii fudude oo ii barake ii qadar oo ii yasir oo ii barake hadii arrinkan ilaahay oo shar ku jiro adduuniya aakhiraba ilaahay oo arrinkan iga leexi anigana wada kale imari meesha khayrku iigu jirana ilaahay uu ii qadar kadibna halka igu raali gali marka qofku waa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ula soo tashado marka uu talada ilaahay u dhiibto
وإن قفكم مدمر كاسوكو إلا أنت قلب جيسا أو كأركيو وحي إلهي سبحانه وتعالى وقولي يبتهلكو إلهي قلب جيسا مريي marka hadaad safar galaysay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah soo tashatay oo safarkii aad ka yar walaacday waa inaad faraha ka qaado way khayr baan halka kugu jirin xalaga yaabaa inaad macsiyo ku soo dhacdo xalaga yaabaa inaad dambi soo gasho xalaga yaabaa inuu dhibaato iyo wax ka mashaakil kale adduunyo aad kala kulanto hadii aad aragto adigoo Ilaahay la tashaday inuu qalbigaaga ku degan yahay oo inay laakiin xamaasad ka ahayna qalbigaaga uu degay oo ku xasilayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku waafajiyay waa inaad hawsha ku dhaqaaqo wuxuu marka kitaabku yiri wama nadima man istakhara al-khaliq mamrugoodo ninka khaliq la tashaday Allah khaliqa qofka la tashada mamrugoodo wa shawara al-makhluqin oo talada u dhiibta dadka Ilaahay abuuray ee al-mu'miniinta ah وتثبت في أمره أرنكيسنا أكاديا وهبسيما كبرا فقد قال سبحانه إلهي وحاويلي وشاورهم استقول النبي محمد الله الله وشاورهم في الأمر أرنك كلا تشم مؤمنين انت كهوس جوكت صحابة هذا علمك عقلك أو صاحبك نبي محمد والله تشو فإذا عزمت مركات قرآن قادتنا فتوكل على الله إلهي تلصار